waad mahadsantihiin maanta waa maalin taariikhi ah oo ku beegan sanad guuradii saddexaad ee ka soo wareegatay muddada xilhaynta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya saaki waxaan madaxweynaha wuxuu qalinka ugu duuga uu saxiixay sharcigii in muddaba la sugayay sharcigii dib u eegista batroolka Soomaaliya oo soo qaatay muddo dheer laga soo bilaabo 2017kii soona maray heerarkiisii kala duwanaa ama laga soo bilaabo golihii ansixintii golaha wasiirada iyo ansixinta golaha shacabka ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya bishii May 20keedii 2019 kadibna waxaa loo gudbiyay aqalka sare wuxuu gudbiyay sanadkan bishan Janaayo 5teedii 2020 sharcigaas wuxuu sharci ku yahay saxiixa madaxweynaha isla markaasna waxaan rajaynaynaa sida u dhaqsiga badan leh in loogu gudbiyo faafinta rasmiga si loogu soo saaro markii wixii maanta ka dambeeya ahmiyadda sharcigan uu qaranku u leeyahay waa ahmiyad aad u weyn oo ah in Soomaaliya ay maanta leedahay sharci ay ku maamulato iyada iyo shirkadaha caalamiga ee maalgashan doona insha Allah taala u dhaxayn doona sharciga u dhaxayn lahaa isla markaasna ummadda Soomaaliyeed uga faa'iideyn doona inay soo saarato khayraadkeeda dabiiciga ah ee Ilaahay ku manaystay oo laga soo bilaabo sanadihii kontameeyadii intay Soomaaliya xornimada qaadan lagu bilaabo wadankan in laga baaro shidaal haddana waxaan isleenahay waxaan taaganahay meeshii ugu dambeysay oo ah in sharcigii la ansixiyay isla markaasna howlihii wasaaradda loo egmaday ay bilaaban doonaan insha Allah